runtii waqti hadda ilaa iyo bil ama ka badanba laga joogo ayaa waxaa ka dhacay dagaal dhinaca beled xaawo oo Soomaaliya marka ciidamadii laba ciidan oo ciidankii dawladda iyo ciidankii kale oo maartay Jubbaland ayaa meesha isku qabteen marka ciidankii Jubbaland Mandera town ayaa la soo geli marka dadka iida ahaa ayaa ummadda dhib fara badan u geystay oo runtii waxa way ummadii ay dhex degan yihiin hadda beerihii oo dadka reer BB1 oo ka tirsan kursiga aan hadda laga doortay ayay dhex degan yihiin oo dadkii maartay beeriya inta la sameystay ayaa beerihii maartay dadka ay ka shaqeysan laayeen arinta ayaa nahaysa dad badan baa ku dhaawacmay maama ama hooyo oo maartay reer BB1 ah oo magaceeda la yiraahdo Faadima Barrey Maxamed Nuur ayaa ku dhimatay meesha oo ku nafwaysay gabar ayada ay dhashin haddaba Nairobi loo soo qaaday meeshan ayaa lagu daaweynaya dad badan oo kale oo ku dhaawacmeen oo hubkii maartay la isweydaarsanay dad ku dhaawacmay oo badan waa jiraan oo ilaa 10 ka badan marka dhibkaas oo maartay runtii oo aan zaid uga cawanay ayaa jira anagana kulay dad reer Mandera way mudaharaadeen inta soo jeer anagana maadaama aan ahay ninkii ay soo doorteen oo MB-gooda ahaa nidaamo fara badan oo maartay oo dawladda lala xiriiraya madaxweynaha wadanka ayaan la hadlay waxaan la hadlay madaxweyne ku-xigeenka waxaan la hadlay ragga militariga u weyn Kenya iyo maartay wasiirka amniga oo Kenya marka dhammaan hadda insha Allah sid ugu degdeg badan inay raggaas arintan xal loo raadiyo oo reer Mandera laga dulqaado dhibkaas ayaa ku ballanay sawirada meel walba ay ku jiraan oo waaba dad beeri BB1 oo meesha la yiraahdo FAO waxa waaye hay'adan weyn oo UN ha Food and Agriculture Organization guri oo zamaani hore oo scheme waxa jiray gurihii area ayay qabsadeen oo hadda ay ku wataan shaqadooda dadka beerihii u socday beerihii maartay dib ay kala kulmihayaan beeriya ayay dhigteen beeriya wad garanaa umaleynaa isbaara oo dadka maartay ay sidii ay u socon kareen waana xuduudka Kenya ayayna ku jiraan marka arrin la ogolaan kara maaha waa arrin qaldan oo runtii wadan kala ciidan lagu dhaxay aan la yeeli karin waa habeeraatay arrin suurtagal maaha waa tii aan ka hadlay aniga meel aan dhaafin ma jirta runtii waxa jira moogtahay waxyaalo qaarkoodna diplomacy ayaa lagu sameystaa waxna maartay digaal iyo qaayli iyo mudaharaad marka aniga maadaama madaxweynihii aan la hadlay madaxweyne ku-xigeenkii iyo maartay militarigii iyo dawladda dhammaan wasiirka amniga oo maartay waqti yarna si leedahay intaas ayaan ka sugahayaa haddii waqtigaas aan ku ballanay ay dhaafta oo arrintan xal ay iman waysa waxa igu qasbi inaan Mandera tagana Nairobi aan kala hadlahay inaan Mandera taga ani iyo madaxda kalaba in aan 10,000 oo reer Mandera inaan soo bixina oo si toos aan wacadna qoriyaha aan ka qaadna annaga oo marka waxay noqonaysaa anaga aan marka awoodda aan la wareegna wallahi odayaal kulley horta Manderaana ilaa iyo aan hadda odayaal aan dirnay hadda oo shaqo gali ma jiraan maadaama arrintii laba ciidan oo is hortaagan oo dagaalamay ayay yihiin marka haddaan ka hor wax odayaal hoo galay oo ognahay anaga officially ma jiraan wax ayaga iska tagay oo soo hadleen inay jiraan ma garanayo laakiin odayaal haddaan ka hor ma gelin shaqada